waxaan u gelayaa ta gudaheenna xisbiga kulmiye wuxuu garab taagan yahay hoggaankiisa aasaasay xisbigan oo madaxweynaha dalka ah oo halyeygii SNM ah ee hormoodka noo ah guulaha waaweyn iyo mashaariicda oo dalka hore ugu marinayo ayaa xisbigu ku garab taagan yahay waxaa ugu dambeeyey mashaariicda uu hirgelinayo mashruucii saldhigga berbera oo dad badani ka qaydiyeen madaxweynuhu isagoo oo dastuurku awood u siiyey inuu heshiis soo galo kadibna uu ka ansixiyo golayaasha wuxuu door biday isagoo tala wadaagga iyo tixgelinta dadkiisa eegaya heshiiskii oo aanu weli saxiixin oo qabyo ah qodobadii uu kula soo heshiin lahaa dowladda aynu heshiiska wadagelayno qodobadii oonu weli isagu saxiixin ayaa wuxuu soo hordhigay labada gole waa waayeelnimo waa dimuqraadiyad wuxuu yidhi ka taliya ra'yigaasaa layla yimid nimankaas waxay halkaa aanu ka kalaysanno waxaan ugu jawaabay qodobadaasaan doonayaa inaan la galee labadii golee qarankiiyo sharci dejintow igala taliya wixii xurna ka saara wixii saxaraygu raaca hore looma arag madaxweynaha awooddiisa u gudbiya sidaasoo kale labadii gole waxay ku ansixiyeen iyagoo 244 mashruucaas wuxuu noqday mid la isku raacay oo intii qaranka matalaysay intuu madaxa saddexdii gole kii dawladda kii wakiilada iyo kii gurtooda isku raaceen oo intii hormoodka dan u ahay caalamka sida looga dhaqmo dimuqraadiyaddu waxa weeye ama xisbi gudihii ama dawlad xataa hadday qoys tahay marka hore fikradda timaado waa laga tashadaa fikradda waa lagu kala duwanaadaa waa laga doodaa tanaa inoo roon iyo tanaa inoo roon baa la yidhaahdaa marka la codeeyo talada la qaata ninka ka daba hadlaa waa fidmo wale aan doonayn in hore loo socdo waxaan uga socdaa labada gore labadoodii guddoomiyaa fadhiyey waa labadii shir guddoon waa saddexdii madaxda ahaa ee dalka uu borotokoolkooda qoray dastuurku madaxweyne ku-xigeenku wuu maqnaa labadooda meelba oo taarinta badan iyo guddoomiyaha guurtida iyo guddoomiyaha baarlamaanka waa saddexdii borotokoolka qaranka ugu sarreeyey baa guddoominayay labadii gole oo loogu yeedho dastuurku wakhtiyo cayiman oo qura uu tilmaamayna shirkay fadhiyeen oo 170 waa shirkii ugu weynaaye qaranka talatan u gaarayay waxa nasiib darro aan hore weli loo arag guddoomiye baarlamaan oo baarlamaankiisa oo guddoominayo markay codkii isku raaceen majoritooda ka baxa caalamka waa kow dimuqraadiyadda waa meel ka dhac dimuqraadiyadda waa ku meel dhac bay ka ahayd labada gole iyo qaranka talada la qaadayana gaf bay ku ahayd manaha siyaasad hufan oo ilbaxa oo tii dimuqraadiyadda ma aha ma waxaynu leenahay ma wuxuu ay garan waayeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo afarta ka baxay raacay iyo inta ka daba qeynaysa xisbigiisii ma waxay garan laayihiin dastuurku inuu qoraayo halka majority-gu u bataa baa la raacaya hal cod dheeri ayaa lagu kala baxaa la isku raacaa madaxweynaha qaranka iyo kii ka horreeyey daahir riyaalo ka ahayd codkii waa lagaa helay wuxuu madaxweynimadu uu dhigay sharaf iyo ammaan buu ku madeeyo ka dalkiisa bushaaxaya axmed madaxweyne siiraayo 80 baa laga helo kaga dhaqaan maantana marka la codeeyo wuu ka dhaqaaqaya sideebaa u dhici kartaa ninka borotokoolka saxaad dalka inuu dastuurka hor yimaado uu fagaaraha intaas fadhiday ee fagaaruhu hogaaminayaya inuu ka dhaqaaqo sideebuu xisbigaa dhammi ugu badheerayaa dastuurka inuu ku gafo udhaa dastuurka anugu yeeli maayo haddii taydii la yeeli waayey waxba kama jiraan oo halkaa doona waan ka qaylinaya taasi ma aha qaranku siduu ku heshiiyey ma aha dastuurka waddani waxaanu leenahay waa garanaysaan in majority-ga meel maray waa garanaysaan dimuqraadiyadda madaxweynaha Soomaaliland maanta Siraayana ma aha nin lagu tuhmo dalkan inuu dhibaato u horseedo naftiisa hore dalkan uu soo huray intuu madaxdaana waa ku arkayseen intii horena waa lagu ogaa ragga maanta Siraaya taa ku caaya hadlaya miyaanay ahayn raggii 20 sanood Soomaaliland meel ma soo gowracay ee goobo soo jeeday متاسم مدة جسرنا رجع فقارون بس وما لنا كسر جورعي قولوا ولا بس شوي لما تصلها ما جرتوا إن ما تيرا هذان وحيا وحصاد عي وارتاد عوض شيء ورابلو شيء وكان كذا يسمينه كاين تاسان كجاريا وحنخبر ما تقولينا
واسود وين القرآن كاي سوق عليه ضد كمية كذا وحنو شيءنا مثل كستوى هذين إن أنا مركز روح ضماتي شرعي تاعي كذا قعدوا صح معه وحنا زوج بجوينيا هذين السمانا وح ينوب لنا هذين كل ميمهاي وتاجريش كل منهاي وح ينوب لنا ونكون صعنا هرمريت دلكينا مثل ماذا قال السوماليا بري الله دلكين إن وحنا رهانه إن مسعى منه هذا وحلا شيء من حمر جوجه وحرر عليا كم يعابن أيها كهو السوماليلاند قعان كذا وحنو شيء هرت حراريين وشوف نوا قدره هو شغاله وصل وحن أنت دوري لكن وحنو شيءنا عيد والبا وحنو عدر وشيءنا قالك السوماليلاند سقط الشضاح عيدنا تلاديس إلهي مويم مويديو نيكا كسو حد قدبانا ما هذا المايو كان صوت وانا يا رمايو فقوي انا ما هو مدور الله كان انت صار أنا وقت هذا يوم ما عوفتك بلارن هي الصعدة أو وزير بدن كم يهين أو كم يه وزير كعافمات كسليمان حقنا توسيه يو محيله وزير الدولة أربعة دبده ويبغى أن كلنا حفلتي إذا ما يجتيجا لما تودي تورا تسخن آدي بان فكر هذا كله ما تضايق تقول آدي بان أيام ذيكم هذا غيره آدي بان هذا غيره واي نور مثلمه وقر يا قرنمه ده كانوا هرو مارينو يا نبى